waxaa xalay ka dhacay magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika xaflad si heersan loo soo gaarsiimay kuwaasoo ay ka soo qayb galeen qaybaha kala duwan bulshada ee magaalada ku dhaqan ku goldhiga xafladda ayaa ahayd soo dhaweyn loo sameynayay madaxweynaha cusub ee Soomaaliya dhawaan loo magacaabay goobta munaasabada ka dhacaysa ayaa ka muuqatay sida ummadda Soomaaliyeed ee ku nool Koonfur Afrika ay u rabaan in waddanka loo helo madaxweyne hogaansha ummadda Soomaaliyeed ee ku rafaadsan gudaha iyo dibadda oo iyaga ay ku nool yihiin waxaa khudbad jeediyay dad iskugu jira madax odayaal dhalinyaro arday dhammaantood waxay ka wada simnaayeen in uu madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya in uu ka soo bixi karo xilka adag ee loo magacaabay waxaa goobta ku sugnaa safiirka loo soo magacaabay Koonfur Afrika oo isagana goobta ka hadlay waxa uu sheegay in ay tahay wax laga xumaado in qarax lala beegsado nin waddanka hadda loo magacaabay oo aan la arkin xumaantiisa iyo wanaagiisa midna taasi waxay tilmaamaysaa ayuu yiri safiirka in ay jiraan dad aan doonayn dowladnimo waxaa kaloo meesha ka hadlay saxafi rugcad